السلام عليكم مواطنين aan jecelahay jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantiin maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeena waa maalin kale oo aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa waxaan se ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeena oo ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo maadaama uu dalku ku jiro تعسي قرن geerida madaxweynaha waxa waajib inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa bedelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusino taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeena ku soo hogaamiyay walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen واجب inagu tahay inuu qarankeena hor socodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeenu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani ma yahayn mid lagu kala sareeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo hor u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen وأنا قوليسني قرنك جمهورية الصوماليلاند أيا قوليستي مدحوين بيحي أيا قوليستي وشغل يسي بلارنايد دور الشضة دستوريا هاي يواجب كيسي سوق رقبضا وانا كتشرو وقتي وحان مركلة مرر ضمبه ومواطن كستا وقو بشارينيه إنه فرحض نيدو وناك كهل الدونان حقوق دوده ويسميهين على كود هستي سنة كم إذا إسنان دونان يجوان لبنه ونقولين أركتيدو ده سياسي جاه هي أفكارته ده شخصي جاه وحفر صدًا وقف إذا سنة إن السجارة وقوم هذنقه مدحوينها جمهورية الصوماليلاند هي حكومة ديسة وضل كقبطي دور الشضن قيمها هي الشرف طبعاً إنه يريس وحنم هاد علينا كوميشنكا doorashooyinka qaranka oo hanaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeeda shirgudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka inoo diyaariyay waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka dhaqanka ee ka shaqeeyay nabadda isu soo jiidka dhinacyada siyaasadda iyo guud ahaanba danaha qaranka waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga iyo danjirayaasha dalalka Yurub iyo Mareykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaarsiisan tahay halbeegyada caalamiga waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbedel dhabdoon ka dhaco oo ugu horeeyo xisbiga ka ururkii barwaaqo ururkii talawadaad iyo ururkii shacabka waxa kale oo aan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta howlwadeennada iyo guud ahaanba muraaqibiinta xisbiga wadani ee ka shaqeeyay doorashadan quruxda badan waxaan u mahadnaqayaa boqolaalka kun ee muwaadiniinta ee codkooda siiyay isbedelka waxa intaas ka sii mudan oo aan u mahadnaqayaa guud ahaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida ilbaxnimada iyo nabadgelyada leh ugutay waajibkooda dastuuriga ee doorashadii isku sidkanayd taasoo nabar ku noqotay nacabkeena farxadna gelisay qof kasta oo damiirkiisu fiicani farayo inuu bogaadiyo wanaagga iyo horumarka Soomaaliland walaalayaal codkiinu qiimo kuma laha cidda aad siiseen awgeed balse waxa uu qiimo ku leeyahay inuu qurxiyay dimuqraadiyadda iyo quruxda dawladnimadeena mar kale ayaa dunida u cadayseen waxay Soomaaliland tahay iyo mustaqbalka ifaya ee ay hiigsanayso walaalayaal dhammaanteen aynu isu wada cafino aynu hore u soconno aynu isu wada hambalyayno guusha aynu wada gaadhnay aynu wada jir u dhisno qarankeena aynu isu kaashano sidii aynu ubadkeena mustaqbal wanaagsan ugu samayn lahayn ugu dambayn waxaan bogaadinayaa
saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliya u soo baxay ee wadani ka iyo kulmiye Allah ha barakeeyo Somaliland iyo dadkeeda Somaliland ha guulaysato Somaliland ha baraadho Somaliland nabad iyo horumar ha ku waarto